ورحمة الله وبركاته. عاو waxaan halkan iskugu imaanay inaan dawladda Israa'iil dibka ay ku hayso walaalahan Falastiin aan ka damqano aan ka dhibaatoono anagu waxaanu nahay dad muslim 100% oo Soomaaliyeed aad baan ugu xunnahay aad baan ugu xunnahay masaakiinta iyo shacabka walaalaynayo Gaza waxaana nacalatullaahi cala Israa'iil meel walba ay joogan wixii taageero iyo wixii ku taageero waxa ay sameynayaan qof walba oo muslim waxa waajib ku ah in uu ka xumaado xataa hadduu wax sameey karin inuu qalbiga ka nacalado Israa'iil meel walba ay joogto nacalatullaahi cala Israa'iil wal yahuud meel walba ay joogan insha Allah ta'ala haddaanu nahay dhalinyarada ku midowda Qatar Group aad baan ugu xunnahay Soomaalinimo nagu jirto aad baan uga damqanaynaa wallahi alcadiim caaw qalbigayga ilaahay baa oo daalacanayo dibka Israa'iil ku hayso walaalaheen Gaza aad baan ugu xunnahay bil Ramadaan lagu jiro yaa rabbi yaa raxmaan ilaahu ka dulqaad dibka ku hayaan muslimiinta Gaza insha Allah ta'ala qof walba oo dawladaha muslimka oo arintaas ka aamusanay nacalatullaah ayagana ka hadli la oo sid gabdhihii camal aan ognahay hebel aan dhig karno ayagana way ka aamusan insha Allah ta'ala laakiin waxaan wax way ka bedeli doonaan ilaahayna ma mooga ummadda Falastiin walaalaheena dibka ay ku jiraan biidnillaahi ta'ala way ka bixi doonaan bil Ramadaan lagu jiro tobanka dambe afkan ugu soo haayo biidnillaahi ta'ala qof walba oo muslimana waxa waajib ku ah hadduu wax qaba karin inuu qalbiga ka nacalado saas baan isku ognahay inaan qalbiga ka nacaladno wixii awood u leh inay barnaamijkaas galaan ay nimankaas maanta waxa dhiig daadinayaan muslimiinta annaga waa nagu soo socday ushi halka ku dhacdo waa ku imaanaysaa ummad muslim 100% baana waa inaan ka gubanaa maanta waxaan maqlay meel ka tirsan Soomaaliya in lagu gubay calanka Israa'iil waana ku faraxsanahay 100% alxamdulillah rabbil alamin ugu dambeyn maxaa u baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed ee ka daawanaya groupka Qataros dibka lagu hayo ummadda Falastiiniyiinta ee habeen iyo maalin la xasuuqayo la barakicinayo oo hubabka loo isticmaalayo ay yihiin hubab aad culus waxaan ugu baaqayaa walaalaheen Soomaaliyeed meel walba ay joogan inay arintaas ka xumaadaan qalbiga ay ka nacaladaan biidnillaahi ta'ala wax kale haday sameey kartaa inay qalbiga ka nacaladaan ee qalbiga ka nacalatullaah cala al-yahuud nacalatullaah cala al-yahuud insha Allah ta'ala ilaahay ka dulqaado aad ay u maasan tahay Muuse Xabiib